وفد بلادنا وهجامين يقدميها أول كلمات الصومال دكتور محمد عبد الجبوس وديواني ودنبوي بكلمارك وقال بحين يدمان بقبلة يدقمين كبري الصومال أي ما أنت سدي لو كان لو سود مقارنة إحدى قبل كسرار عينبا وفد القدميها اللي ارتقى بلاد كشيشة مقارنة عيل هذا كل واحد باطل كيلومتر بنك بري كجبلان مقارنة عينبا حرمته قبل كسرار أي يدقمين أعرف ربنا يروح يستانها جارك يولي بعلمه قيني سديرا أسود البيان مسؤولين وفتي ayaa ugu horeysay laga ugu soo dhaweeyay dadweynaha reer Caynaba oo waftiga u soo deebiyay gudaha magaalada kuna soo wareejiyay jidadka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada waxaana ay waftigu isugu soo biyashubteen xafiiska ururkan ku yeelan doona magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyadoo ay halkaas ugu horeyn ka hadleen uqaal aqoonyahan haween iyo dadweyne aad u tiro badan oo kale gudoomiye ku-xigeenka ururka ummadda ugu horeyn halkaas ka hadlay noloshaasna hadallo ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday sababaha keenay in ururka ummaddu xafiisyo noocan oo kale ka furto dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka marka baadayna ku soo dhawnay laakiin aad iyo aad ma sintiisa waqtiga ay soo magaranaysa waxaan idin sheegaynaa maanta waxa weeyaan in xafiisyo la furo maaha magaranaysa hawl kala socota marka xafiiskaan furayna mar haddii la furay xafiiskiina insha Allah waa idinka gudbaynaa aad iyo aad ma sintihiin waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha ururka ummadda gudoomiyaha ururka ummadda ee gobolka Saraar Xasan Aadan Geedi ayaa isna waftiga ugu mahad celiyay kormeerkan ay maanta ku soo galeen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka ummadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa xadiga ka tiray xafiiska ururka yeelan doona magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar isla markaana halkaas naq aad u bilaabay ugu soo jeediyay shacabkii aad ka tirada badnaa halkaas ku soo dhaweeyay مستقبل الصومال اللي نقول سامعكم يا رنيا كم بقى العقلة كم بقى الحجة كم بقى عسارة هاي الرعبة عدة بنت بلكة واه ده عدل ايون الكواجي dhanka kale waftiga ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Og wadaamago iyo Ceeldhaab iyadoo halkaasi ay si rasmi uga furteen xafiisyo noocan oo kale ah si kastaba ha ahaatee markii ugu horeysay ee gudoomiyaha ururka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo waftiga hogaaminaya kormeer noocan oo kale ah ku soo gaaraan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga Somali Channel Caynaba